إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. موضوع waxaa leeyahay culimadu waxay yiraahdaan mowduuca ugu wanaagsan oo dad lagu waaniyo waxay tahay in geeri la xasuusiyo. maxaa yeelay insaanka aad u jeedaan waxyaabaha qaybiyaadka markii laga hadlayo qofkii iimaankiisa qawi uu yahay ayaa waxyaabaha qaybka aamina. ولذلك إيمانك دبت مركز أرجت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة arrimaha ficliga ah waxa ka horeeya marka hoosta arkaan iimaanka dhanba waa qaybiyad an tu'minu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. qaybiyadkaas maxay qiimo u yeesheen? waxay qiimo u yeesheen nin kasta ma rumayn karo. qaasatan ummadihii naga horeeyay waxay ahaayeen dad maadi ah. waxay arina allaha jahratan saas dhahay yahuuda ilaahay faatihana la tusoo cadan rabnaa waxaan ka anzil alayna maa'idatan min as-samaa. waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa waxyaabaha ah maadiga oo faktiga ah ay yihiin. walidaalika dadka laba nooc ay kala qaybsamaan sidooda. nooc waxaa jira oo qalbigiisa raqiiq yahay oo qeybka iska aamina waxyaabaha aan dhici karin xataa markii loogu sheekeeyo. abubakar sidiiq oo kale saasaa loogu magacaabo sidiiq ayaa lagu magacaabo. maxaa dhacay? waxay carabta dhan qaadan weyday oo quraysh i qaadan weyday in baytulmaqdis iyo maka in loo socdo habeen kaliya loo socdo. carabtu wax ma iska xado abu jahl ragooda masaxda oo gal weeydi. maanta wuxuu yiri maxamed wax cusub la yimid. abubakar oo meel ku maqan markii loo sheegay wuxuu yiri waa rumeeyo yiri aniga. walidaalika dadka isku mid ma ah. qulubta bini aadamka marka qaasi weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku waxay ku jilcadaana dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka haddii maanta lagu yiraaho ilaahay rumeey malaa'igta rumeey su'aalo fara badan oo qofka isweydiin karaa oo shaydaanka uu dakhli ku geli karaa. malaa'igta maxay tahay? naarta markii laga sheekeeyo jannada markii laga sheekeeyo waxaas dhan qaybiyaad wey. marka laakiin nafta waxay wax arkaysaa faati. walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaqa almowta walxayaa. mowtkaasaa lasoo hormariyaa layidhi khalaqa almowta walxayaa. maxay mowtka wuxuu kumid yahay waxyaaba faatiga kumid yahay wax arkaysa. geerida shalay qof kula joogay oo adiga kula hadlayay oo kula sheekaysanayay oo asaga howlihiis qabsanayay ayaa maanta waxaa arkaysaa inuu saakit yahay aamusan yahay. هذا قد قدناي شلو قوي سجر ما أنت ولا قبينا ولا رقيا شلو أسقد يجر ما أنت ولا قد قدنايا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحنا ليه هاي أحاديث سيد قصة أرورت مركي صحابي يوجد رجل أنصار يوجد النبي عليه الصلاة والسلام وحول أي مؤمنين أفضل مؤمنين تأوقف اللي بدن مؤمن أنت لن يأوقف اللي بدن وحول أحسنهم خلقا نبي عليه الصلاة والسلام وحول وحوقف اللي بدن مسلمين تكنوا أخلاق بدن. مركز سؤال كل ويد وأيهم أكيس يعقو عقل بدن المؤمنين مركز عقل يقدرك إلهي مصير من مركز نبي عبارة عجيبة وكجوا مركز مدهين كانوا عقل بدن وجنجورية دستا كان ما بدن لا كان صلاة بدن تكذا كان قيام الليل بدن سمايا كان صدقة بدن بحث مدين وحيري أكثرهم للموت ذاكرة. مؤمنك وحاو عقل بدن نيك جيري مركز تحنوت حصوصت ساس دراد مركو قفك dadka iimaankoodana waxay ku qawi yihiinba ninba ninka geerida ka xasuus badan yahay. ninka geerida iska ilaabo adduunka ilaabo xaaraantiisu iska dhaqsanaya. maxaa dhacay? geerida dhanba waxa waa radcigi ama caamilkii lagu cabsi lahaa geerida way. naara galaysa qayb way lama ogo laakiin waa geeriyoonaysa kullu nafsi dha'iqatul maut. geerida maxaa dhacay? faati oo arkay aabihiisa soo dhintay walaalkiisa dhintay in adeerkiisa dhintay. ولذلك وحلي وقيمة بدن وعقل بدن مسلم كان مركز تجيري حنوس مركز رتيت إن أتحاس كاجا أدول مسيد جيري ده سو حاسوسني سؤال هذا عاود من يساعد نفتك بحده وحلي هذا وكباقي كرتامر ما حد عاي مركز لمتد عقتها إن حركة لهين جيري هديتي ماذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وروح نجري بجري زيارة إن قبورتهم حد عاي علت محيتها قبورتها محله بوقنيا وحاليت في إنها تذكركم الآخرة. آخرك وحسوسنا محايا للشلي إن كل جوجا ما تعرقوا أو أكل ساز ردد أيام ما أنت وحاس كاجي تابن إن جيريد حالة ده الناس حسوسنا محاضرة تاسوي مرك. ولذلك جيريد وحالي مرك إيمان يسوع
إلهي سبحانه وتعالى أسباب بدن وكسور شيء وحلادها على موي فرق بدن مواقفنا ولا ذا قفك مؤمن كهدوء وهذا مواقف تاس وحلقيها با إنه إلهي سبحانه وتعالى وحسنينك حاران تقادناي كان ربدا قادناي كي سبريت كجري كي دولة دع العقتان كقاضو لو بوق قاضي سمي إسلانتي أضيق أو عاس يكون قتي وأدعي ويدي أضيق إسلانتي حق إذا كنتم تؤسر أذان الرقعة وحاسدن وحا أصله إنه جيريدا حاس محان دعي ولذلك وحالي لها جيريد إنه لش وحالي لي شيء متناقضات وي معايا الجيريد وحكته إنه الموت مركي كهذلايان وحكي كهذلايان وحاجر وحيابس كسور النور والظلام أفتينك وحكسو عكس يسكو مجدي ساسو كلوي البرد أقصى حرارة وحك كلول أياكو ولذلك وحي نولشي حياتنا نولشي جيريد نساسي كوجين ولذلك وحي رهان الموت هو سكون واليرها لقد عربي مركي كهذا ايام وحي كليهين اصل كيس انسان كانه عاموسوي وحانا كنت المامان جيريد وحا لو تلمام القيامه الصغرى dadku waxa la yaabaa inay sugaan qiyaamaha goorma dhacay waxa hadda waxa la yiraahdaa in qofku inuu isku mashquuliyo adduun gadoonku waa soo dhow yahay dadka afkooda bartay adduun gadoonku waa soo dhow yahay laakiin ma ogsoono adduun gadoonkiisa asaga waxa ka xig geerida ka xigta bas ولذلك waxa la yiraahdaa الموت والقيامه الصغرى ayaa lagu tilmaamaa ومحا دعي وحيرا من مات فقد قامت قيامته ليرا نك غيريود قيامه كلو سوغاي مله اساق قيامديس waa dhacday dadkan kala qiyaamo suugay laakiin adiga qiyaamada waxa ku jirta intuu waxa ku jiro ولذلك noloshaada haday badan suquuna naqanaysa insaankan wuxuu ku xarakeeyaa naftaas ku xarakeeyaa ay joogto inta nafta ay kugu jirto xaraka leedahay markay nafta la siibo xarakada way ka baabaada ولذلك waxa leeyahay markii la galo qofka geerida u timaado hore qiyaamaha intuu ka aad waxa jirta xayaat albarzaqiya allah geerida maraaxil soo maray marxaladeeda hore waxay ahayd qofka in ruux laga qaado ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay in dadka markay geeriyoonayaan oo nafta laga qaadayo in laba siib waa lagu qaadaa liiri anaga hadda misoogun habeen kasta naftana laga qaadaa habeen kasto in naftana laga qaadaa sala laga qaadaa waa hurudna ولذلك وحي يراهن sidoo kale sidii loo yiraahdo ninka geeri u timaado qiyaamadiisa waxa la yiraahdaa ان الوفاه الصغرى اجرتين geerida yar geerida maxay tahay hurdada weey oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka noogu sheego وهو الذي يتوفاكم بالليل إلهي سبحانه وتعالى إلهي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار آيات وحي شيكتي إلهي سبحانه وتعالى هبين قدتك إنه أوفصد وفاة الصغرى دعض إلهي واني أوفصد إلهي وليه هبين قدتك مركي نفط هردد به نفطها كابحذي آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وقصي عدينا وحليه الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلهي وحليه آيات كان وحليه الله يتوفى الأنفس إلهي النفط أوفصدا غيري وكردا وفادا كود على نفط غورمي وي ان markay geeriyooto markii nafta laga qaado adiga oo dhimanaysid nafta lagu soo celiyo laakiin marka kale muxuu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wallati lam tamut fi manamiha mar tan ajasheeda u dhiman tahay oo ilaahay ugu talagalay wili wax ka adduunka ka sii cunto wuxuu leeyahay taas wuxuu leeyahay waa soo deynaya tan kalena waa soo diraya ويرسل الأخرى معناها تنكن أو هردة يسودي آياتها طبعا كنت مركا أذيك هبين كاستمركا هردد السنة وحلقة ديجا مركا وحلل لي يقفكم من السنة وحال النبي عليه الصلاة والسلام لقى ثوري وحول يقفكم مركا وصيحنا لين عم يدك وصيحه هذا سررت هذا قبل ذا جرت ولينا قبل ذا أكيد يتوقف عنته معايا لي وكما قفكم ميت كسيل ودقاي قلت كات هذه سنة الناس كذا حتى لين عبدح قد عناع وصيحت معها ما داعي إلهي أيضا حكوا شيء إن جيري يكون قبنيس جيري يا سوحي كانت مركي إنه النبي صلى الله عليه وسلم نقول تفصيلي ويراهو إذا ذهب أحدكم الفراش متكين هذا فراش ذا فاليوم على جنبه الأيمن مدكت ميت مركي قلت كل اللي قبر على الميت لو دقيقة ما داعي مدكت حوي وحيابها وصلنا ذا قبل ذا لو جيدنا قبل ذا لو جيسد ولذلك وحلا ذا إلهي سبحانه وتعالى دعاء وح آخر نساء وأهيد دعاء النوم من كقرنيسان كل قود وحكي ترجميسها جيري كترجميسها أنا هذا أصون غنين ولذلك مركز سوق قاعد حلا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا بالفيل سو واحد هرداك سوق قاعد وحلا إلهي يسون لي مركو يسود دلي معايا لي هردين أنت كجرت جيري كجرت ميدة هذه مركز سيحنيس عليه باسمك أموت وأحيا
waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa noloshaada maalmeedka waxaa laga dhigay inaad geeridaas aa xasuusatid mushkiladda muslimiinta laga raacna waxay tahay geeridaas meydkaaba waxaa laga yaaba ninka inuu naxashka inta ku wado gacanta ku wado oo qabriga u wado oo haddana dad xamanayo meydaan u wadaa oo saa u wado meydka qabuurtuu joogaa meydaa la dugaya halkaas ku sheekaysana laba loo istaagay adigina marka waxa lagu leeyahay waa dhimataa walidaalika naftaas geerideeda inuu qofka uu soo maado markii nafta la qaada liin markii la qaada xayaatul barzakh ay tagaysa ilaahay wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawm yub'athun ilaahay qiyaam bu'thiga laga soo baxayo xayaataas barzakhiya ayay ku jiraysaa laakiin xayaata barzakhiya hadda anaga intaan u gudbin waxaan rabaa marka hore inaan ogaano kulliyaadka aayadda ay sheegtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi afar xaqiiqo ayuu ku sheegay aayadda meydka markuu ka hadlayay kullu nafsin daa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أفر حقيقة والير هل آية كوض جران جيت أفر تاس كلام القرآن هذه أتكلم ريبتيد نلاش هذا وحوي أذوق آياتها القرآن كمد أو قاعدة تعلمتها دتك لك للأسف آيات أنت هوري قاتان أو كل نفس ذائقة الموت نك صدها نك مركي جيرد على الشيء جاية معها آيات حلقة زي اللي جوجين maxaa aayadu asaysataa culimada madaq markay ka hadlaan waxay ku leeyihiin muqaddime iyo waxa la yiraahdaa natiija la yiraahdaa labada ugu horeysa muqaddimo dad labada aan sheegno adiga dakhli kuma liidbo qofka muslimka laysa lahu athar dakhli kuma laha asaga maxaa dhacay muxuu dakhli ugu lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay geerida nafta markii lagu gelinayo adiga lagaalama tashanin markii laga saarayna lagaalama tashanayo wama tadri nafsu bi ay arrin tamut goortay dhimanaysi goorta la qaadayo ma ogid walaalka maanta ku celceliskeeda adiga kullu nafsu daa'iqatul maut waxa adiga dakhli ku leedahay maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa la weyn وإنما توفون أجوركم يوم القيامة sidoo kale muqaddima la yiraahdo idan ma aha natiijo ma laakiin natiijada labada ay dadka ilaabaan waxay tahay labadaas ka horeysa waxay tahay faman zuhziha 'ani an-naari wa udkhila al-janna faqad faz warninki naarta laga dildilayo jannada la geeyo kaas ayaa faayisa kaasna adiga laga rabaa hawshada waa i'mal waa marka kaas ilaahay ma aha adiga ku adiga adoonkan waxa lagu keenay ina naarta iska qaadid ka leexatid oo jannada waxa way waa lagu sheegay labada jid ayaa lagu sheegay rasuul lagu soo diray wuxuu leeyahay war naarna waa tana janna waa tana marka ninka oo la rabo inuu jannada galo adigu waa i'mal waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum taasoo asalka tan dambe oo dadka ay xasuusinaysa idan ku xid maxay tahay wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur war adduunyo maxaa loogu dhagan yahay idan warnalku kidinaysa way maxaa yeelay moodku waxa ku ilaawsinaa adduunyo way waxa ku ilaawsinaa jannada naarta waxa ku geynayo waa adduunyada way wama al-hayatu ad-dunya illa man natiijada ugu dambayso marka noloshan adduunyo waa mata'ul ghurur ku talmo nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika ilaahi subhanahu wa ta'ala cid kasto si adduunyo gaaladan uu siiyay adiga gaalkan oo ilaahay ku caasiyay fiir waxa adiga jeceshahay aqliga hadaan u soo qanqano adiga waxa jeceshahay maanta waxa way armaajo iyo baaswood iyo biinu way ku xiran yihiin carab banaanka lagu arko laakiin waxa rabin warqada oo qashinka oo kale iyo meel kasta iska taala waxa laga yaabaa marmarka qaar waxda iyada qashinka lagu daro iyadoo fiican qashin lagu daro laga yaabaa maxaa dhacay adiga la tubaali qiimo kalam la agtaada waxa qiimo leh halkan iska saaraysa laakiin waxa kale jeebtuug iyo waxa gelinaysa iyo biinka ama waxa ku xiraysa qiimo ku leeyna dahabki ibraa haasta laakiin marada iska caadiga jikada ku gasho meel kasta iska suuranta walidaalika aqligu wuxuu sheegay laba qof markay cadow isku yihiin ana hada cadow igu taa adiga waxaan jeclahay ma ku siinay waxaan aniga aan jeclahay aan qeysanahay dahab iyo maalna ku sii laga ma yaabo laakiin marka laga yaabo inaan ku yiraahdo waxaan waxa xun la siin ninka waxa hereerayga la siin ku dhawa laga yaabo waxaan aniga qiimo igu fadhiyaan wixii iga soo harina iska siiyo adduunyo ilaahay marka haday qiimo u fadhiyo wixii culimada gaalka wax ma ka siiyeen maxaa dhacay gaalkan wuxuu cadeystay ilaahayna ku gaaleeyo oo yiri ilaahu nicmadaada ma aqaan waxa ana sameystay saasoo yiri qaaruun inma utiitu wuxuu yiri ala cilmin cindi ka imaad ana waxaan sameystay markuu gaalada saas waxaan waxay ku leeyahay anaga sameysanay ilaahay hadana adduunyadan si adduunyo xataa dhalaal waa qurux waa firijeerkan waa teknolojiyadan ay gaareen waa aragteen guriyayna siiyeen maanta dhan console iyo u dagaalamayna waxaasoo dhan ay ku siiyaan iyaga waxay jeclaayeen waa adduunyo waa la sii haddii adduunyo marka gaalta aqliga ma ku keenay ilaahay ku caasiyeen mal cadaab kuwan ولا إلهي في سورة آل عمران عليه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء آيات عجيبة ويرى علماء كيف فسرين مركي إلا بين أو ذكر إلا بين قال هذا كهذا فلما نسوا مركي إلا بين ما ذكروا به إلهي ذكر جيس إلهي حصوصته إلهي عابود مركي لير معبودين إلهين إلهي وعليه
قصفنا بهم الأرض مرة وعولة فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيات أصبحوا عضينا سائدنا إن الدنيا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء ما قال ما شربة ماء ما كسيان حديث كل وحول النبي عليه الصلاة والسلام مركو أركين أسقوا دولك جيفو اتجع رسول الله صلى الله عليه حصير سأسول حديث سعد نبي قال وحول درين وكسح درين تاكل كيس كسو بحذي أصحابته وحول يا رسول ألا نأتي بشيء تتقي به مكو كان واحد اسك حجز دولك درين تاسك حجز وحول مالي وما الدنيا وإنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استطل تحت شجرة ساسو كنت الإمام النبي عليه الصلاة والسلام وحول الدنيا أنا ما حكى لنا هاي ما حدا وحول waxaa ahay waa nin harsaday geed hoostiisa oo musaafir adana ninka markuu musaafirka yahay waa ka guuraya adduunyada walaalka aayadaas oo ku soo bilaabatay kullu nafsin dha'iqatul maut oo ku dhamaatay wamal hayatu dunya oo hal aayad isla ah oo dadka ay kala googooyaan taas waa musiibada meesha ka raacday walaalka adduunyada waxay ku saabsan tahay malaha balse wuxuu leeyahay nabiga kaleey sallallahu alayhi xadiiska Amr ibn Aas kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil waradun kan waa ka tagaysa geeridu ku xasuusina nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam adduunyada waxa ku ahaataa nin wada highway goynayo ama nin qariib ah wal qariibka waxa la yiraahdaa qariibka luqada carabiga la joohor iyo saxaaxa marka aad aragtid laba macna ku yimid labada macna quraanka waa ku soo ororiyeen qariibka al qurbatu macnaha waxa la yiraahdaa luqatan waxa la yiraahdaa alladhi ba'uda an daarihi ninka gurigiisa ka dheeraada waxa la yiraahdaa qariib ayaa la yiraahdaa Soomaalidu waa qariibana wal qariiba sidoo kale waxa la yiraahdaa ash-shay'u al-jadid 'alayka luqada waa ku soo orortay waxa kugu cusub oo cusub oo asdeys waxaan وهذا شيء غريب لأن محنا جديد علي أنا عصب يا ولي ما أركن وشيء غريب إنها تراهد أما إنها تراهد من مسافر وجورجيس كدير هذا لما ذا وقت حديث كان حليري وحكوا لي غريب وحكوا فسري من مسافرة كن في الدنيا كأنك غريب كان كلا شيء قال لي يا أبو ضدك إلى يابا يعني وحكوا عصب وآخر زمن كقيام الإسلام النبي عليه حديث سعد بن سعدي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء wuxuu islaamku wuxuu ku bilaaday qariib asoo la yaaban yahay oo dhahay maxay tahay diintan saadaata quraash waxay yireen diintan maxay tahay wax lagu cusub weey adoon iyo waxay sameeysaa iyo ninkii sayidkii sameeysaa oo dadkii carab iyo wax kala ma qaadayso waa la yaabeen saas daraadeed ayaa wuxuu leeyahay qariib haddana waa arkaysaa gabadha xijaaban ninka diinta ku jiro ninka masaajid ku jiro qariib la leeyahay waxa leeyahay mutaqallif waa kan muxuu yahay wadaadkan cimaamada qaadanay muxuu yahay koofida maxay tahay qariib wadanka waa dambeeyaa leeyahay maxaa dadka qariib ku tahay walidaalka nabigu wuxuu yiri fatuuba lil ghuraba dadkaas la yaabi doono ayaa geedka jannada duuba Allah u sugnaado leeyahay ومن هم الغرباء سعد بن سعد الروايات كل كله من هم الغرباء يا رسول الله دتك غربada yihiin ma dadka iska labistaa shakliga maya diinta amal ay u baahan tahay maxay tahay wuxuu yiri alladina yuslihuna an-nas idha fasadu dadka oo waaninayo markay fasaadaan dadka dhahay ruuxan ka jooga kuwaas kuwa jannada duuba loo balan qaaday ma dadka shakliga kaliya maaha idan geerida hadii xaq saas u tahay marka walaalka qariibnimada mararka qaar kood waxay keentaa liiri waxa leeyahay waxay keentaa qofka inuu ku dhiiriyo xaaraanta maxay qofka markuu meel la garin uu joogo oo dadka dhan uu ku dhex jurin oo meel dad cusub oo gaalo oo shaqeynayo xaaraantiisu waa iska dhex shabsan karaa qariib ku yahay iyagu qariib ku yahay saas uu leeyahay ibn qayyim markuu ka hadlayay asbaabihi oo nabina yusuf oo ka reebtay inuu zinada ku dhaco waxa kamid ah uu yiri annahu kaana qariiban 13 sabab uu sheegay caamil oo u sahleysay yusuf inuu xaaraanta ku dhaco laakiin wuxuu leeyahay 13 sabab waxa kamid marka annahu kaana qariib yusuf magaalada uma dhalan maxay yeelay jida laga soo gatay reer magaalada dhashay imraat al-aziza tirninka noo dhaaf marka meesha qariib ku yahay wuxuu yahay wal qariib yaf'alu ma la yaf'aluhu al-muqim maxaa dhac wuxuu dhigi karaa yusuf warislaantan ka zinayso maxaa dhacay yaa ku garanaya dadka xaafadda magaalada u dhashay miid adiga waa dhigi karay walidaalka halkaas way meel kale ka laadahay aniga waxaan ku masliyay arinta markaan ka hadlayo ninka qariibka ama xaaraanta waa ku degdeg ogol yahay maxay tahay haddii aan bas korno wadaadadeena iyo raggeena ka soo qaad gabar Soomaaliyeed xijaab hadii kursi fadhido kursiga baska ama tareenka oo dhinaceeda faaruq u yahay gabar tima bayoonta oo in buluug hadii fadhido halkan oo madaxeeda qaawan yahay kursigeeda qaawan yahay oo kursigeeda banaan yahay ninka Soomaali soo socda gabar Soomaali ma la fariisanayo tan oo la fariisanaa haduu inoo fariisan rabo muxuu ugu orday gabadhan oo jinsigeeda ah wuxuu ugu orday maxaa dhacay qariib kama ah tan qariib ku yahay haduu jilibkiisa xataa gaaro waxa laga yaabaa inay wax u qaadan laakiin tan tuu jilibkeeda ku dhaco leeyahay wadaadku ay shukaansadeen leedahay wal aqsu sahih gabadhan sidoo kale way nin Soomaaliyeed oo inta fadhiyo nin gaal oo labadooda kursigooda dhinac ka banaaya ninka gaalka inay la fadhiisatay rabtaa maxaa dhacay kan Soomaaliyeed oo la soo fadhiisato wadaad iska qalbi jecaan tan adeeg ku rabtaa usdaasna adeeg ku jeceshaa wada dhimbo wax musiibo maxaa dhacay nafta maxaa dhacay mayaalatu ila al-qurba way nafta qurbada rabto
saas daraaddeed waddamadan aan imaanay macsida waa lagu dhiiraday maxaa dhacay meesha kuma dhex jirto walidaalika dadka khaasatan gaalada la shaqeeyo waa nooga dhow waa ku dhow yihiin inay ku dhiiradaan xaraan ku dhacaan maxaa dhacay nin soomaaliyeed kuma jeedo asbaabahay kamid tahay xaaraanta u sahli karto soomaali kuma taqaan inay isiraahan gabadha waxaa laga yaaba gurigeeda xijaab inay ku qaadato reerkeeda laakiin iskoolka markay tagtay gabdho gaalo joogto xijaabka inay isku tagto maxaa dhacay gaalada qariib ay xigtooda ka tahay laakiin hadhow markuu nin soomaaliyeed arko gabdhaha waa aragtay islaamka mararka waxaa arkayna halkaasay joogtaa maradeeda waa kala furan tahay gabasaarka si fiican mu wadato qoorteeda bannaan wadaad sheekh halkaas markay ku aragto asture wadaadka ma laga iska astura mase ilaah la iska astura waa su-aal meesha ku jirto والغريب يفعل بما لا يفعل القوم قيم ساسو ابن قيم اللي اسبابه وكشيء ساس دراد دينتان markay qurubadeeda waxa asal ku ah marka inuu moodka simaado marka haday gul moodka u yimaado oo la yiri qof kastana i'tiqaadsanta marka kullu nafsin aqatulu waxa leeyahay kullu nafsin aayadaas waxay yiraahdaan culama usul markay ka hadlayaan nakara mudaafa leeyahay wal nakaratu mudaafa tufiid al umum way kullu nafs lafdu kulli oo asaga umum faa'iideynaya ayaa hadana nafsi nakar laga dhigay nafsigaas oo nakar laga dhigay wuxuu keenay inay naqato wax nin walidaad aayada kale ayaa sheegayo kullu man calayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلهي كل قوض حكو شيئا إنك ميت وإنهم ميتون وحاصل النبي عليه الصلاة والسلام أيال وليه ولذلك دعوينك في الصحيح حديثك ابن عباس دعوينك وجه حكم ذا قفك إنه قرنا يقول ليه أعوذ بك عزتك الذي لا إله إلا أنت إلهي وأداء عزة هذا إله حق عابده إله كلمة ما قال الذي لا يموت والإنس والجن يموتون حديث رسول الله مركب جيرد هذا إيمان يسوع وحال جيرد وحال هذا مركب ملائكة إيمان يسوع وحن أوجين حديث كثير حديث كهراء وعليه يجمع أحدكم في بطن أمه متكين وحال كل منها علوش هو يدي سيالو كل منها علوش هو يدي سيالو كل منها وحال قرية ملائكة إيمان يسوع فتكتب وحي قريسة أفر شيء وحي قريسة أجيشي سي قريسة رزقي سي قريسة وحاصل إنه قرط سما مركب جمع قاس لسمه مركب لو أبورة هي علوش أجشي ملائكة لكل مية وح عجيبة markii nafta laga qaadanay malaa'igta la kulmina ayaga dadku ma ogotaas mushkil kale way geeri aniga waxa ognahay in calooshayna marka galeen malaa'igta la kulmiyay ay loo qoray risqayna waxaan la qoray malaa'iga ayaa la qoray walidaalka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa huwa al-qaahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idha jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna idan dadka qaaday waa malaa'ig rusuluna malakumut kalima maxaa yeelay malakumut ka asaga wuxuu leeyahay lahda al-akhira markuu nafta dadka qaado oo amarkaas uu leeyahay laakiin soo diyaarinta baaradin qofka walillahi al-mathal al-a'la qofka markii operation ku sameeyay dhakhtarka operation ku sameeyay qofkan suuxiyo maya dhaqaatiirka la suuxinayso wala soo diyaarna ninkan birihi loo keena dhac waa ka qaada le qofkii operation ku sameeyay hakada malakul maut asagana walillahi ilaahu wuxuu leeyahay tawaffatu rusuluna wa hum la yafarritun xaqi la galan ma ku xad gudbayaan rususha soo diray marka aayad kale waa leeyahay marka waxa ajiib marka malaa'ikta labay kala tahliir marka ملائكة العذاب ولا صدر ضدك فسقضة أو إلهي كعب سنين أو حارانة أو عناية أو قردة حسوسين جريد أو ديار جروبين ملائكة أو عذابك الله صدر كوا كلا ومؤمنين تأهنا وحال صو إلهي كبقاية أو إلهي حقوق يسجدنا أيه أو هذا الشيخ وشيء أوليد الله ها إلهي سبحانه وتعالى كواس حال الملائكة رحمة الله صدر ولذلك إلهي وحليه إن الذين قالوا ربنا الله أيضا مركز تفسير كذا عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا معناه إن أفكار كثير هذه الكلمة إله الرومي كلمة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة تقول لك صدق عند الموت ولا عند السكرات يكون صدق جيزة مركز سكراتك وحالي رقفك مركو بقى جريد وسكر وسكرات الموت كسكر عبسي ولا ناكو أرورت عبسي ماشي جرتك إيمان يسا وحال تجتمع عليه الخوف والحزن لا بد أن كلمة وحالي وحوك عبسنا ورني واسعتا وجد Soomaalidu waxay yiraahdaan waayeel wadkiis waa yaqaana markuu halkaas arinta ay taagan tahay wuxuu leeyahay ilaahay talow in halkay u socota waab socotaaye ma janna gali doonta manaara galaysa waxa la al-khawf 'an al-mustaqbal mustaqbalka loo cabsada wax soo socdo waxa ninkan waa ka tagoha wax soo socdo ka baqa والحزن على ما فات sidoo kale wuxuu ka baqa wuxuu leeyahay wareerkaaga carruurta ilmo yar yar leeda cunuga kii 10 jir waa kan 3 jir waa kan 7 jir waa islaantii ada u adeegi jiray hawla u qaba jirtay yaa ugu tageen waa murug ak greystaas yaa ka kafaal qaad doon ilmaha marka laba arin isku tagtay qofka markuu sakaraatimood ku joogo wax soo socdo asaga qoseeyo iyo wax ilmihiisa qoseeyo
وحاجيب مركا كو يراهين إلهي آمني أو ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة محليه وحليه لبضي وجيدايا مركو ماشي جيفا وحليه الله تخافوا ولا تحزنوا اللي لبض ولا قريبا هذا ما لا أوصل نفتيز ولا ما أوصل إنه قدنا يعني حتى أصدق وأركي أنا ما أركينه ونحن أقرب إليه منكم حبل الوريد إليه وحل أنا قاني قدو ميت غير هذه أبا هل كان عندها تاجي ولا كان عندها كور تاجي غير ذا عايزه ملائكة سو أركيا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي إنها الضبولة ميتك مرك حادعي من قان أباه كي عذابكم وأركا ما قان كي رحمة مو أركا ما قان مرك حرنا الضبولة مرك عبسيها إيش هدي مرك وناك أجر هدها شقيستي وحول لي إلهي الله تخافوا ولا تحزنوا إلهنا كبقينا عبسنين عليه نارك عبسنين ولا تحزنوا إلمينا وبقينا لبدا مرك الله يفسر وحول لي أما عبسيدي أهيد أو نار تهيد وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جندي أني لسه يبوهاي نلبلن قاضي حتى بكون بشارة سليم مركو حليل مركو قاركود حليل نسك المجاهدين تإنه وحير لو العدين على أرك عليه ننكست ملك أركو لو العدين محادع بشارة أو دعاء نكاس بشارة أو دعاء حليل أبشروا بالجنة جندي سالو تصي ألو بشاري المه توضي ويلها يستو يا وتجي وحليل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ملائكة أو بلق قادس المها أنا إنشورس لو قلنا مركز أجورس لو قلنا يا قلي لك أساق قشت أشورس مركا إنشورس كتبت وحيتها مركا هدي إلهي كعبسة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هدي الله بلا سلتي مادد عرورتها وبقين آيات كانوا حليه في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف إلى وعليه المها قدالك كتيس كعبسدان كواس إلهي لإنك بقى بس كسوق قبي إذن وحن المركب ملائكة سكو إيمان يسوع ملائكة رحمة حديث كله حكوا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي براء بن عازب وعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعكير إن العبد المؤمن أدونك مؤمنك إذا كان من انقطاع من الدنيا إذا كان في انقطاع من الدنيا مركو لقى أوفسنايو وسكرات الموت كجو إقبال من الآخرة وآخرة قابلة مركز حالة انتقال الأجرة مركز جوريس دوي وحكي جوريس الدنيا آخرة وجوريس نفتها لقى ساريا وحوليه نزل إليه الملائكة من السماء وحكوسو دكتا ملائك أيا سمدك إيمان يسو ومحيتها بيض الوجوه حديث كذا عدين وحلو وجه قود وعديها كأن وجوههم الشمس وجه قود وقرحض وكلا معهم كفن من أكفان الجنة وحي وذان درعد وكفنت كرفنت الجنة أي وذان حنوط أو من حنوط الجنة حنوط وحكميت كلا مريو وأسقنا الجنة الكينة وذان حتى يجلس منه مد بصره مال الناس وحكار كانوا فريسنا يعني أيقو بكفن كاس وجهه عدي هاي ووجهه الشمس وقرحه وكليه كرفين تاسنا وضع أي فريسنا يعني وجهه معهم ثم يجيء ملك الموت ملك الموت كإيمان أيو عليه السلام حتى يجلس عند رأسه أيقو حي فريسنا ملك دير لكن ملك الموت وحالي مضحوا كفريسنا قفكم مركو جيري لقاضي فيقول حوليه مركا أيتها النفس الطيبة والنفي وناك ثاني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وإلهي كسو بقي جري وحاران تسكيل علي جري وحمانتي حنتي غيبة إلهي كوهنا قبل بهذه وفي رواية عليه أيتها النفس المطمئنة ودها يا أيها المسلم آية القرآن كسورة الفجر آخر كذا آية حديث الروايات كانوا على هذا أيها النفس الطيبة وعلى هذا اخرجي وحصابح عليه ترتيبه لما ملك الموت قدايو وحليه هكي أليسا إلى مغفرة من الله ورضوانا هبقنا لله عبس أرجع حس قالوا ديديا وحليه إلهي دي مداف كيس رضوان كيس إماو قالوا حول فتخرج أو تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء سيد الصوف وحكون عوجري قطرة وحلقسوا سيبا يكلا سيد ترى فيأخذها مركز النفط سقاضيا وأكو إلهي سبحانه وتعالى كبقي أما كان كافر أو فاسقة أما إن عبد الكافر وفي روايته حتى الفاجر أدون كفاجر كإلهي كعب سجرين أما كان كافر كاه إذا كان في انقطاعه من الدنيا وإقباله من الآخرة والدنيا وكقرأيه نزل إليه ملائكة من السماء ومانيس غلاط شداد أذك وصود الوجوه وجه وذا مذويه معهم المصوح أي قتل مامي وحوا برو وتاليري وتاو من النار فيجلسون منه بدل اساسا وعبسين حقي وفريان واركي اسغنا فياتي ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس الى جنب راسي وهو عند راسي وفريسنا ملك الموت كامانه وحو له ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سقط من الله وغضبه الهي عرضي صبح حناقي صبح عليه
أو فتفرق في جسدي نفته وحاليا مركي وأكل عريسة مركي نفته مركي ساس لعب صيو وحالي جيركي كهالروماني فتتفرق في جسده مركز مدمدة حوجة مركز لوسوسية فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير شعب وحيابها حاليا بورها وكلا كان من الصوف المبلول وعليه صوف قوين وكلا برهت يكون جرتام وكل دقة ما صوف صما مركز قوين برت واقف سنة ساس عمل لو سيب الحوجة ويجري وفتقطع معها العروق والعصب حيددنا يقول إنسان إذن إلهي أيضا قالوا حقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون هدي أركتان مركي هل كان سوق قارتو حلقومك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون آيات قالوا حقول هي أن سورتك الكجرت إلهي سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراق هل كان كالحمام مركي سوق قارتو وقيل من راقت لهني ورياك طفها إيمانت يا بد بادين أيو ظننا وحلينا بمعنى تيقن حافظنا معنا ظن قرآنك ظن ما ملاك لي ما وحو حقيق صدي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وعلي إلى ربك يومئذ المساق ما لين كاس ولا كحيني هذا إذن حالها صوتنا أي نفط أي سمر يسامرك إلى قاضي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى أيضا وحكله قال هذا مركي أن لا قاضي أن مدتك فجارته إلهي وحكله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قرعدا لو قدريا مركي لو فينايو نفط لا قاضي ملائكته وجوه أدبارته تميسا وحله ذوقوا عذاب الحريق اللي أركا الدنيا لو هرمرنا عذابك إلهي سبحانه وتعالى ما دعي ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إلهي سبحانه وتعالى وحله ضد مظلمنا يمانته إيه وحوي ما أنت وحا إيديك سميستين أي لو لي هالكاس ليه آياتك لو حله حتى ضدك أو حجك ديجنايو والله والله بلد قال عن جونا النبي دي أنت قولوا كده هايو شقدي ولا ديدنا تكذو قرار لهايو ان ما انت جمعه ولا ديدي شيخ صلاه ما حنكو سميه وكو ورداي صلاه جمعيه كذا قارا مجمعين قارا صلاه الناس كذا ما دحي وحول لي هدات تكتيد waxa laga yaabaa shaqada laga erinaya wuxuu sheedaanka wuxuu u soo waxyooday hadaad gabadha xijaabka ay qaadato ay asturto ilaahay shaqo ma siinayo warisqa ilaahay ya ballan qaaday risqan waxa yujma ahadukum fi badni ummihi way walidalika kuwa oo dhahayo anaga cudurdaarka sheeganayo ilaahay wuxuu ku masriyay qolo ayagu waxay ku soo degtaalay gaalada joogteen حديث البخاري وحولي حديث ابن عباس مركي إلهي أمر إن لقصوها النبي الأمر إنه كسوها هاجران مكة تضبطنا كسوها هاجري وايد تدا اسكفر يستعيرين أنا مدينة بزنس ما لقيه هلايو وإحنا لقيه هلايو ماشي أنا بزنس كنا جوا مسلم أنا نهلا لكن ماشي أنا اسكجون بلد قال اسكجوين هذا مركو قاركود واحد نتيمو دجال كل قصود قاركود دجال اللي قد ليبو المسلمين تيجي قال لحظة ولذلك بلادك قالت هلا يقول مركي يقولها وحوي أصل وحوها إن دين تهذا أكون موجكرين حداد دين تهذا أكون موجكرتيد وأصلات هذا أكون أوجكرتيد وشقة أكون تكرت حجاب هذا قبله بلد قال معها بلدك مسألة معها عيب ولذلك علماء مسألة بلاد الكفار بلاد المسلمين وحاس وأمر اجتهادي ليرا ليس فيها النص وده هي بلاد كان كفار ولذلك فقهاء اجتهادي أنت حكوا اجتهادين حتى فقهاء يحسوا قلافتين معيارك بلد كان قال ما حلقوا ليه كراه ما هو حلقوا ليه هدي دتك المسلمين يهين سيدي إرتريا وكلام إثيوبيا وكلا أما وحاركيس دولة بدن أو غامبيا وكلا دتك المسلمين لكن دولة قاله دتك المسلمين تكون بدن لكن دولة محل بلاد المسلمين قال ما ليه اختلف فيها العلماء أما عكس على قد جايو هدي دتك قالين أو مسلم أو حكومة دتك كوب بدن قالوي لكن مسلم حكومة نك حكومة سلطة ما لفيرنا مثلا شعبك لفيرنا معيارك وحلي اساس معها معيارك حوي شعارت الهي ماشي لو اوغاي دول بلد قال لما دهي كرو اصلك تاسوي ماشي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام مركو بعثات كديراي وحو دهي ما دهي ددك تري ما دهين يا حكمك هاي ما دهين وحو دهي اذا سمعتم الاذان فكفوا عنهم هدي اذانك اقول ددك دول مسلم والله فالله حتى قالوا بدنا ديرمان ساذانك اللي وكلي ولذلك مساله الله دول قال لك علته maxay tahay cilada waxay tahay ninka ilaahay ku caabudi karin oo rabo inuu xijaabka inta ku dhigo oo rabo inuu salaada uu ka taga ala shaqa ninkaas waxa leeyahay alam takun ardullahi wasi'a qabanayso war meel oo ilaahay shacaarkiisa waa inaad tagtaa ama shaqada ka joog ama ka guur wadankan qofka ilmihiisa ay ku dhumeen gaalada arko oo ilmihiisa cali karin waajib ay ku taa wadanka inuu guur maxaa dhacay diintii ku dayacmayso laakiin dad nas caam wallahi laga soo ubo maxay ardiga ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ardiga lillahi askale ana ardi lillahi yurithuha man yasha ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga qofku urbasiinayo لكن ما هي إنه قف كلا ليه تقسيم كعلماء قيبين وفقهاء وحقوق إجها كلية
دينتان أصل دينتان مكوكودو كرتا ودنك ها إلهي مكو حسابتم ودنك على جوكتم مكو هاي دينتا هذا مو عصتي وكعريسة ولذلك إلهي وحول الله مركز دتك عذر دارك دينت وسمينا يسوق لها مركز إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا وحلله فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين صلاة ما كتيجي جرني أنا ما تكون جرين شقدا يقول خصبتي أنا سروال حرتو شقدا يقول حرتين حجاب كتجو قرك حيلة لا يري وحلا يري أن حجوين كانوا وضنا صلاة ما تكون كري وحصدن إلهي وحول الله ألم تكن قالوا ألم تكن أرض الله واسعة لليه أو فتهاجروا فيها marka hijrada ama wadanka ka guur ama shaqada ka soo haajir shaqada asaas lagu leeyahay ka haajir asalka taasa ku ah hadii marka asaas asamaynin ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qabanaya walidalika rizqana orkiisa waxaan ku soo gabagabeynaya en sakaratul mautka nabiga alayhi salatu wasallam wuxuu sheegay inuu inna sakaratul maut ilaahay aayad quraanka uu sheegay inna lil maut sakarat nabiga alayhi salatu wasallam nabigu khayr qalqilaha ayaa nafta lagu imtixaanay sakaratul mautka فإذا كنت تالينا مرك قاركود محاد عي سكرات الموت كو حواي دي مدافوي قفكم مركو كصبرو قفكم مركو سكرات كمرايو هدو كصبرو او يراه الحمد لله سيدو النبي عليه إنا لله إلهي سبحانه وتعالى ولابتو وعليه الدنبي قدنا لغا دقيا حديثه او يراه الله بايي الله هوغي أنا ساسا إدعي ولا ضيعوا أنا وكاسا لقوا مددالين دد إسبال إيجينا مله قف إيقودنا مله قف عقابنا مله دامات النهيزد وإسنفت ساس كان بحضو ومشكلة وي قفكوا حال دوني ولذلك إلهي سبحانه وتعالى ونوشي القرآن ونوشي وجاءت سكرة الموت بالحق إلهي وحول سكرة الموت أما أنتم موت إيماني سكرات إيماني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مركو وغيريوناي سكرات وين قبت خندا قبت النبي عليه الصلاة والسلام خندا وين ولذلك قفك إيمان كيسة حتى وحل الله سكرات الموت مرك قاركود وحيابه وكوكينا وحيتها مرك قاركود وحل الشهدان كانوا صانكوا ولا فهم قبتها حديث إمام أحمد مسلم عليه qofku markuu salaadu ku jir sheedanku waa ka adkaada adaa ka adkaata salaadu waa ku jirta soonku waa soo mijirtay meel uu ka soo galo waay wuxuu ku guraasaa sakaraatu mawdku ku guraasaa sheedanka ajiib sooma gar madaxa uu safro wuxuu leeyahay war diinta haysta qalad waa diinta ka bax ilaahay ma saan ku dhibaayo saas uu ku leeyahay markaas waxa leeyahay walaalika riwaayada laga haya qaar salafka inay yireen la saddex jeer uu yiri marka dam uu nacam yiri la waxa yiri waxa leeyahay la maxaa u dhahaysaa adig wuxuu leeyahay sheedan arkay oo yimid oo leeyahay diinta ka bax ma yadhahay yiri aniga tana ku dhimana marka qofka aamin ma ku jiro hatta adoo salaad badan tukana aamin kuma jiro hadii uu ilaahay oo qaat xusn qaatim oo siinin ولذلك إلهي وحده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا غير مركي كو جرتوي وفي الآخرة هذه إلهي كلمة داس كوا فجن وتوحيدك أو كوا فجن ولذلك قفك عماشي قف حسن قاتم اسمه ولذلك النبي وكبر يجري حسن قاتم قفك إلهي نو ورصده ما حي قفك غرور كلو يدا هذيك ماشي قدام بيس دينتك جوكتا خلاص واتكتا ما سكرات الموت كلا سوغيا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليه توحيدك كرمنا عليه لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات عائشة وحديثة ما كالس ما رأيت وحيت ما أركن الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكاس إلا وما ضحك نبي وصوحي وتنصو نحي عليه الصلاة والسلام لأن سكرات الموت كبر قصاصها مركز حتى وحديثة إن واقع بيدالين مركز ودي النبي عليه الصلاة والسلام وحجري ساسا لهن كان سكرات الموت وهي لكن إن قفك اعتقاد إلهي سبحانه وتعالى توحيد جيسا مركز علينا إلهي سبحانه وتعالى هنقدقه ان كوي موت كاس وديار جروبه ان هدي اد غيريداس لو ديار جروبين ان waxa geerida dadka ilo siina waxay tahay rizqan dunyada raadinayo rizqan ilaahi xalaal lagu raadiyo rizqan waa laga tagaya waana ku qoran yahay wallahi rizqa wuxuu nabiga kaleey salaam oo ruuxul qudski ku dhaartay inaan qof adduunyo rizqo asaga laha oo qoran asagoo dhameystiran adduun laga wadin ilaah ballan qaadtaas رزقك دو قرينه الدنيا عد كحينيسا مالها الا رزقك كعنتي ولذلك حركيسا دد لا دهايو تمن بري وسرير وصارنا جلاس بي كما دغنين ما انت سو فريستا لي بيو عابي برين وا دنتا دن بيها سالو سو فريسي كلينو عاب بس ما حدا هلكاس كوب جلاس ام عانو ايا غدنا رزق ولا سو فريسنيا فلابا ku jirto waa suxsanaa kuma ku jiray waa soo naxal leeyahay waxa yar oo afka saaraya waa bahalka la xalay shalo fiicnaayo maanta waa ka baxda leeyahay ما حد عي ناس كم أقول رزق عسى إلهي سبحانه ولذلك اطلب الرزق إلهي هلو ضلبه وناك هلو ضلبه ما حد عي حلال كور هذه فأجملوا الطلبة طلبك إلهي هلاقيك لكن هدات إلهي حاران يحس كسر هذينا أبوه أرضية رزق الأرض كمر هذه وحاجيب وحليه هل آية القرآن كسر أرض عليه والرزق هذه تسكاد ليس هل كآية نحيتري صعد الأقول هذه عرر أرض لما دهن
قرآن الرزق وكان هذا لكن هل أيضا أمر فعل أمر عليه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا هذه اللي الصعدة مشي لغة عربية وحاليها عنق مركو صعدك بردك ياهي أي مشي ليها وآيرو صعنا غفك صعدك وحاليها صعدك آيرك ولذلك قبلها وحالرها مركي صعنا وحلو أمانة مشي الله صعدكم maxaa mishi loo dhahaa waxa la tartiib talaabo dhulka dhigaysa maxaa dhacay gabar halaf hadda lagu arkay Yurubtan goor wada business wada galay oo boorsada inay ka dhacdo ordayso orodkaas ma laha gabdhaha walaalka ilaahay wuxuu leeyahay Shucayb markuu ka hadlay gabdhaha wuxuu leeyahay wajaad ihdahum tamshi ala istihya tamshi mashi askale cunug markuu kuray naqdo oo socod boobsiis galno waxa leeyahay sa'i yalo falamma balagha minhu sa'i waxa leeyahay markii uu cunug kuray noqdo oo socod xoog leh laakiin mashiga قرآن كمرك ما دهين فصعوا ما دهين إنما وحول الرزق محل مع مشي لو يلالين محل دعي حتى هذا ترتيب سعود الرزق قرنا وتجي قولوا لك كاب كوضو هبين إيمان هذا شقيان وسبدي أحد شقيان إصلاح العق بدن كان والله العق عن مالن كاس بيشهس أو قرنين يكينين رزق ذو قرنين لكن هذا إلمي سعاون ما نسبدي أحد أو إلما كل حجره ما ما كلا أو كلها بيستو رزق وين كده هذا شقي هلا وملايا محل دعي رزق إله حكله فمشوا فيه كان ولذلك عرفت ما لهيت هنا قبر أمانة وعليه كأن مشي من بيت جارتها مر الصحاب لا ريث ولا عجل سازولي ويقول قبلها وحلوية قانا يوري ما صعد بدنا لكن ما حي صعدها يدي قرق درسك جيران كي تكتا كأن مشي من بيت جارتها مركي قرق يدي درسك وسعنيسو ويقول مر الصحاب وي وضرورته كله ويقول لا ريث ولا عجل ضرورته مركي صعد بارتها ما عررتها لكن ولذلك الصوماليين ما قاموا سوقان تودا ولذلك هي سو يقانا ما دحدانا مركز إرادتك وإله عليسكم ما دقاقدو ما عررته وقرنا سوما عقد صعدك ها إذن كسك دمستر نعم مركا والو أمانة وحياها الو أمانة وحقا وكتمت لكن وحا عجيبة الرزق مركي لك هلا عبادة فامشوا لما دهن إلهي وعليه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامشوا ماليري فاسعوا إلى ذكر الله خير قوي وصارعوا إلى مغفرة من ربكم ودقدقة آياتك العلي ومن أراد الآخرة معليري وسعى لها ومشى مجرته آخرة سعي وبهانت مشي أمال لكن أنا واجد ديني الدنيا ذا سعي كدقنا آخرتنا بضيعة كدقنا إلهي حقا نوتس ضمانتين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام.